Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadli doonaa vital sign-ka oo ah xaaladaha dabiiciga ah ee looga baahan yahay qofka. Haddaba waxyaabaha loo baahan yahay in qofka laga cabbiraa waxa weeyaan 1 temperature-ka, 2 blood pressure-ka, 3 pulse rate-ka, 4 respiratory-ga, 5 blood glucose-ka. Maanta waxaan ka hadli doonaa temperature-ka. Haddaba temperature maxaa tahay? Haddaba temperature-ku waxa weeyaan xaaladda kul ee uu leeyahay jidhku. kala temperature-ku wuxuu kala baxaa laba qaybood oo kala ah core iyo surface. Haddaba core-ku waxa weeyaan xaaladda kuleed ee gudaha jidhka. Sidoo kale surface-kuna waxa weeyaan xaaladda dibadeed ee jidhka laga dareemayo kulka. Sidoo kale temperature-ku wuxuu maraa 4 xaaladood oo kala ah 1 normalka, 2 paradoxal fever-ka, 3 hyperbaradoxal fever, 4 hypothermia. Haddaba xaaladda normalka waxaa lagu cabbiraa 36.5 ilaa 37.9. Sidoo kale paradoxal fever waa xaaladda xumadda ee stage 1-ka waxaana lagu cabbiraa 38 ilaa 41. Sidoo kale hyperbaradoxal fever-ka waa xaaladda ugu sareysa ee xumadda waxaana iyadana lagu cabbiraa 41 ilaa 42. sidoo kale xaaladda hypothermia waa xaaladda barafowga waxaana lagu cabbiraa 35 ilaa 34. haddii intaa uu ka sii hooseeyo 35 ilaa 34 dhiman karaa. haddaba waxaa lagu cabbiraa noocyada kala duwan ee thermometer. haddaba waxaa sidoo kale laga cabbiraa 4 meelood oo kala ah oralka oo afka ah, lambar 2 oo ah rectalka oo ah malawadka, ka saddexaad oo ah tympanic oo dhegta iyo axillary oo kilkilada ah. Haddaba haddaan ka hadalno qodobada saameeya waxaa ka mid ah 1 age-ka, 2 exercise-ka, 3 hormones-ka, 4 stress-ka,